Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa nabadaada kusoo dhawaada channelka Socdaal Media Network. Waxay la socodsiin doonaa mowduuca maanta anigoo ah Cabdalle. Ugu horreyn waxaa laga codsanayaa dhammaan daawadayaasha inay subscribe saaraan channelka, like saaraan, siina share gareeyaan si aad uga faa'iidaysataan mowduucyada barnaamijyada aan ugu soo gudbino halkan, annagana ay nagu noqoto dhiirigelin iyo horumar. Sidee ayaa loo codsadaa shaqooyinka caalamka? Waddamadee ayaa qaata shaqaalaha ugu badan ee Afrika? Sidee loo qortaa CV qurux badan oo kaa saacidaya inaad ku soo baxday shaqooyinka? Halkee laga raadsadaa shaqooyinkan oo la soo dhigaa? Su'aalaha iyo su'aalo kale oo badan baan insha Allah caawa is dul taagi doonaan ku iftiimin doonaa barnaamijkeena. Daawadayaal sida wada ogtihiin caalamku waa laba qaybood waa wadamo raadinaya shaqaale oo ay shaqaale yaraan ka jirto oo cid u shaqaysa doonaya, iyo wadamo ay ka jirto shaqaale la'aani oo dadka caadiga ahaa ee shaqaynaya ay la'yihiin waxa ka shaqeeyaan. Wadamada u baahan shaqaalaha waxaa ka mid ah wadamada North America sida Mareykan iyo Kanada, wadamada Yurub iyo Carabta qaarkeed sida Khaliijka, kuwaas oo sanad kasta ka kaxaysta shaqaale aad u tiro badan qaaraddan Afrika. Shaqaalahaas oo ah shaqaale xirfadlayaal ah oo kuwa shaqaale aqoon leh ah. Haddaba waxaad moodaa Soomaalida inay ku baraarugsanayn oo inay ka warhaynin, waayo shaqaalaha ugu badan la qaataa waa wadamada kale ee Afrika. Haddaba daawada ogow inaad ku guuleysan kartid haddii aad macluumaad dheeri ka haysid oo fahamsan tahay halka loo marayo. Insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan flashback idiin soo saarno website-yada ugu tirada badan ee ugu macquulsan ee la soo geliyo shaqooyinkan. Waxaa jira website-yaal dhowr ah oo lagu baafiyo ama la soo dhigo shaqooyinkan. Insha Allah waan soo dhigi doonaa shaashada halkaas ayaad ka geli doontaa oo kasii research gareyn kartaan. Haddii aad Google gareysid oo aad arkaysaa shuruudaha ku xidhan iyo waxyaabaha magaranaysaa looga baahan yahay qofka codsanaya. Waxyaabaha ugu waaweyn ee qofka iska doonaya waxaa ka mid ah luqadda English inaad taqaanid. Waayo luqadda English waa muhiim shay walba inaad kombiyuutarka taqaanid iyo xirfad gaar ah inaad leedahay. Waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka, dadka beeraha aqoonta u leh ama agriculture-ka yaqaana, dadka IT-ga ku fiican ama IT-shiyaanka iyo xirfado kale oo aad u tiro badan. Insha Allah mowduucina soo socda ama xalqadan xigta waxaynu dul istaagi doonaa inaan shaqooyinka mid u dul istaagno iyo kuwa macquulka ah ee la heli karo ama dad Soomaali ahaan inoo macquulka ah. Haddii aad mid ka mid ah ku guuleysatid waxaad si dhib yar ku tagi kartaa wadankii aad ka heshay shaqada, iyagoo company-gaasi kuu fududeynaya ama kuu sahlaya. Insha Allahu tacaala waxaanu isku dayi doonaa inaan xabad u dul istaagno mowduucyada ama xalqadaha soo socda si aad ula socotid. Insha Allah nagu xidhnow oo subscribe saar channelka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.